السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكو صلاة واشي وناسن دمان انتكو حنا channel كينا قلبي شو official. فضلا هدي تاي مركادي كوغو ريسي بليز سبسكرايب نوصل دينا كسودو كلا فيديو هدي اكاشين لايك نوصل وحي رأي وفكر كومنتي انو داف سودو كلا كومنتي كاغا وحي نو تاي ديرجلين ما دو حارا انا كهالو جوجل حاجة فاسن تاي جوجل غورميل سمي ياسي اساسي جوجل هورتا جوجل waa shirkad ama Google waa shirkad American ah billionaire ah oo soo sameeysa warbixinada fiidiyoyaha iyo dhamaan xayeysiinta sidoo kale shirkadda Google waa shirkad American ah billionaire ah wax soo saarta iibisa aaladaha ku xidhiidha internetka sidoo kale shirkadani waxay ku ganacsataa xayeysiiska dhehda karaynta website-yada software-rada raadinta akhbaaraadka iyo waxyaabo kale oo badan Google waxa la sameeyay dhamaadkii sanadkii 1998 waxaana sameeyay laba nin oo la kala yiraahdo Larry Page iyo Sergey Brin oo ahaa laba arday oo Yahuud ahaa oo wax ku baran jirtay jaamacadda Stanford ee ku taala dalka Mareykanka labada nin wada jir ahaan waxay leeyihiin 14% dhaqaalaha shirkadda laakiin waxay maamulaan 56% taasi oo awood buuxa u siinaysa jihaynta iyo gacan ku haynta shirkadda shirkadani Google waxay maamushaa 64% raadinta online ama online search-ga ugu awoodda badan waxbaritaanka adduunka adeegyada shirkadda Google waxa kamid ah aaladda raadinta Google ama Google search sidoo kale warqadaha Gmail aaladda wax lagu kayso Google Drive adeegyada xafiiska ee loo yaqaan Google Docs barta bulshada oo Google kamid ah Google asigaaba kala baxo ilaa iyo Google waxa jira images jiraan videos jiraan all news jiro sidoo kale waxa jiro translate jiro sidoo kale fariimaha software Android aalada Chrome-ka OS operating system-ka tarjumaada iyo adeegyo badan oo kala duwan oo dhamaantood la xiriira internet-ka shirkadda Google waxay sidoo kale leedahay website sawir socda YouTube-ka iyo barta wax qoraalka blogger-ka loo yaqaan intaasi waxa dheer in Google ay ku soo baxdo in ka badan 150 luuqadood kuwaasi oo uu kamid yahay luuqadda afkeena Soomaaliga bishii November 2015 shirkadda Google waxay ku dhawaaqday inay sameysay shirkad waalid u noqonaysa dhammaan shirkadaha iyo wakaaladaha ku abtirsanaya Google midaasi oo loogu magac daray Alphabet Inc. waxaan rajaynayaa wax badan inaad ka fahanteen kana faa'iideen waa inoo mowduuca xigo hadduu Ilaahna gaarsiiyo insha Allah sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.